بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. warkii ugu dambeeyay ee ku saabsanaa gumaadka qasa waxaa lagu dilay 2 sano iyo 4 bilood gudahood. ilaahay u naxariista intii qaangaarka ahayd 200,000 oo qof. Ukraine dagaalka ka dhaxeeya reer galbeedka iyo Ruushka ee Ukraine ka dhacayay 4 sano ugu dambeeyay kumay dhiman 5,000 wax gaaraya 200,000 oo qof baa ku dhintay qasa intay leegtahay waxa weeye waa meel yar, waa 25 mayl oo dhererka ah iyo 5 mayl oo ballaara haddii aan xasuusto. waayo waa loogu talagalay Maraykanka iyo Ingiriiska iyo Hollandiiska iyo Jarmalka iyo Faransiiska, Canada, Australia, New Zealand way ugu talagaleen hubkii ugu dambeeyay in meesha yar ee dadka dhul yar oo dad badan ay degan yihiin in dadka lagu gumaado waa loogu talagalay. adigu laakiin maxaad ka qaban kartaa? aan xasuusiyo dadka ugu badan ee 200,000 qof waa caruur 70% iyo dumar. marka maxaad ka qaban kartaa? waxaad ka qaban kartaa waxyaalo badan. waxaad joojinaysaa alaabadaad iibsanayso sida niifyada oo kale, creamka niifyada la yidhaahdo, baasha weelka lagu meedhay feerida la yidhaahdo, sawirkeeda muuqaalkana horaantiisaad ka arki doontaa haddii la yidhaahdo. cadarka shaneelka la yidhaahdo ama waxa alaali wixii makeup ee Chanel, shirkadda Chanel ayaad joojinaysaa. waayo intaasoo shirkadood iyo shirkadaha kaleba oo kuwa kale oo ka hadlay waxa ay lacag siiyaan gumaadkaas ayay askarta waday ayay lacag siiyaan. marka gumaadkaas la-aantood, adiga lacagtaada la-aantood gumaadkaasi muu socday. haddii muslimiinta joogta Ingiriiska oo kaliya ay lacagtooda ka joojiyaan shirkadahaas, gumaadkaasi wuu istaagi lahaa, wii gudihiiba ku istaagi lahaa 2 sano lasoo dhaafay. laakiin dadki ma doonayaan, waayo dadkii dan kama lahaa bini-aadanimo iyo cadaalad toona dan kama laha. marka adigu qof waxaa tahay, waxaa laga yaabaa weli dhiig le, weli damiir ku jiro. niifyada iska daa, feerida ha iibsanin, shaneelka ha iibsanin, naykida ha iibsanin, adidaaska ha iibsanin, starbuck waxba ha ka cabin, macdonald waxba ha ka cunin. wax badan baad qaban kartaa haddii aad doonayso. qofkii damiir leh wax badan buu qaban karaa. 10 geni ama 10 euro meeshuu geynayo hadduu u fiirsado, shirkadaha gumaadka wadaa way bedeli lahayn, waayo iyagu lacag bay caabudaan. marka lacagtaada ku dagaalan, lacagtaada cadaaladda ugu hor istaag. cadaaladda waa muhiim, cadaaladdu waa caafimaadka bini-aadanka. qofka cadaaladda ka leexda waa qof dulmi aqbalay, isaguna dulmi buu ku noolaanayaa, dulmina wuu taageerayaa. beri ka maalina dulmigaas isagunbuu kusoo noqonayaa. marka shirkadaha iska daa, Abu-Dhabi ha tegin, Dubai ha tegin, xitaa diyaaradda ha ku bedelin, waayo waxaas oo dhan waa gumaadka. waa waddan gumaadka wada, dulmiga wada, muslimka bahdilistiisa wada. Somalilandna dabka geliyey. dabka imaka u bilowday qarniga soo socda haddii aan ilaahay farash kala qaban oo aan gumaystuhu aanu burburin, sidaasay ku soconaysa. marka shirkadahaas waxbaa ka iibsanin, haddii kale gumaadka ka qayb qaadanaysa, aakhirana ilaahay wuu ku weydiinaya.